الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى خلقiga uu abuuray oo dhami waxay dhex gadgadoomayaan nicmooyinka ilaahay subxaanaه wa tacaala uu siiyey mid u muuqatiyo mid ka qarsoon wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baaطina ilaahay wuxuu idin huuyey nicmooyinkiisa iyadoo la mid muuqatiyo mid qarsoonba wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaaliyo waxa aad nicmo haysataan waa mid xagga ilaahay subxaanaه wa tacaala ka timi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idin siiyey oo idinku deeqay ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa uu mudan yahay nicmooyinka tirada badan ee aan tiro lagu gaari karin in rabbi subxaanaه wa tacaala looga mahadnaqo in ilaahay subxaanaه wa tacaala loo qiro oo lagu ammaano oo looga faa'iidaysto ilaahay raaligelintiisa iyo waxaa addoonka rabbiga u dhoweynaya ilaahay subxaanaه wa tacaala in loo mahadnaqaa waxay ka mid tahay cibaadaadka waaweyn ee addoomaha inta samaysa ee ku dadaashaana ay yar tahay waqaliilu min cibaadiya shakuur waqaliilu min cibaadiya shakuur ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamay addoomihiisa inta mahadnaqdaa inay yar yihiin ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay subxaanaه wa tacaala in loo mahadnaqaa waa waajib ka mida waajibaadka addoomihiisa uu ku faral yeelay oo qofka ka soo bixi waayaana uu noqonayo qof dembaabay ilaahay baa subxaanaه wa tacaala ina amray inaynu umahadnaqno fاbtaguu cinda allahi الrisqa wاcbuduuh washkuruu lahu ilaahay subxaanaه wa tacaala risqiga xaggiisa ka doona ilaahay caabuda oo umahadnaqa wuxuu ilaahay subxaanaه wa tacaala xidhiidh adag ka dhexaysiiyey cibaadada iyo mahadnaqa si uu ilaahay u muujiyo inuu yahay min arfaci manaazil الcibaadaat wa aclى اlqurubaat manaasisha iyo darajooyinka cibaadaadka kuwa u sareeya inuu ka mid yahay si uu rabbi inoogu muujiyo iyo waxyaabaha ilaahay subxaanaه wa tacaala uu inoo jideeyo inaynu ugu dhowaano kuwa ugu sareeya ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku ammaanay in badan oo ka mida addoomihiisa inay ka soo baxeen addoonnimadii ilaahay uu abuuray waxyaaba ay ku xaqiijiyeenna ay ka mid tahay inay ilaahay nicamkiisa uga mahadnaqaan duriyata man xamalnaa maca nuux inahu kaana cabda shakuura nabiy llaahi nuux ilaahay wuxuu ku ammaanay laba sifo inuu ahaa addoon ilaahay oo addoonnimadii ilaahay uu abuuray xaqiijiyey iyo inuu ahaa addoon mahadnaq badan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala in badan u mahadnaqa sidaasoo kale ilaahay wuxuu sifadaa ku sheegay nabiy llaahi ibraahim shaakira liancumi ijtabaahu wahadaahu ilى siraaطi mustaqiim sifaadka ilaahay uu ku sifeeyey nebi ibraahim waxaa ka mid ahaa inuu ilaahay nicmooyinkiisa uga mahadnaqi jiray ilaahayna uu doortay subxaanaه wa tacaala sifooyinka wanaagsana taasi ay ka mid tahay sababtoodna ilaahay uu ku hanuuniyey waddada toosan ee ilaahay subxaanaه wa tacaala raalli ahaanshihiisa gaadhsiinaysa ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaa isaguna sifadaasi xaqiijiyey nabiyuna muxamadu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaanu ku xaqiijiyey bilqalbi wاllisaan wاljawaarix inuu qalbiga ka qiray nicmooyinka ilaahay uu siiyey carabkana uu uga tiiriyey nicmooyinka allihii ugu deeqay ilaahayna uu ammaanay oo uu ku ammaanay biasmaaءi اlxusnى wa sifaatihi اlculaa camal wanaagsan
ومهدنق إلهي أنا وسمين شري أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ومركي لقلها الله صلاة الليل كي ديراء لغوها إلا برارين هدو إلهي يقول نعميين ويدن بدافي ميانا إلا قد بونين إنا النقضة الدون إلهي سبحانه وتعالى ومهدنقه أيها المسلمون عباد الله إلهي عقاب كي صوحا كمده الدون كينو نعميه وهدنا أن وافتشن مهدنقي واجب كايا هيدين كمهدنقو إلهي نعم كيسا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إلهي وحشاقي الضوامها إلهي عاسيي قال لمكو عاسيي أمدن بكسوكية إنه سيتديرين إلهي سبحانه وتعالى ونكادنا أيه وحول الإمام السفيان رحمه الله تعالى إلهي وحاكم ذا استدراج كيس إنه الضوان كان يسبغ عليه نعم ثم لا يوفقه للشكر إنه إلهي الضوان كنعم كيس هويه حدنا آن وافتشن إنه إلهي نعم كاسي وقام هدنقه أيها المسلمون عباد الله ما هدنق إلهي الله ما هدنق مركا كوباد وعباده إلهي كو دوينيس وصحي آخرنا كو نقونيس كوغونا دريس الليسكا أدومها إلهي ونكسن وارهنات كوه ليس إلهي أبا المرنتيس وسيجزي الله الشاكرين إلهي وحو صفي عن وابا المرن دونا أدومها ربي أما هدنقه ومد صابو نقونيس إلهي نعم كيسو إني كو كردان وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي وحب الله قادي أدوان كوما هدنقه نعموين كينو كردنا أيوه فإذا كما هدنقه إلهي وحكم إذا أدوان كينو قرطو قدر كنعمة إلهي وسيوها نقورصا هوسنا أنو إيجن إنانو كو إسرافين وانو دادين ونعمة إلهي سبحانه وتعالى أوسيه وإلاليه أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بشكره على نعمه وآلائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله ما هدنق إلهي الله ما هدنقاه وعبادة المؤمن في السراء وعبادة الدونك إلهي وكعابده مركو لديها يوكجر حالة كفرح قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وحالياب له وناقيس وينديسا أو قادين لغياب مدن قفك مؤمن كارين كيس هذه دباتا إلا كلانتو صبريا صبر كاسو إلهي أكتيس الدرجو يا أبا المرين بكيغا هليا هذه نعم لكل مو إلهي وصينا إلهي بو مهدنقيا تاسو خيرك كقاريا وليس ذلك إلا للمؤمن أرنكاسين قف مؤمن أيوم باكو قوليستا تانا معنى هذا وحوية الصبر عند الضراء والشكر عند السراء من ثمرات الإيمان وفروعه لباتا مركا يكون عدا الدون كوينو صبره نعم إلهي مركا وهلنا إنو مهدنقا ومدك مدى مدها إيمانك قفك الصبر كيسا هي الشكر كيسو بوحي اللي كانيان مربى قدر كإيمان كيسو أولاقي هاي إذا زاد إيمانه زاد الصبر وشكره وإذا ضعف إيمانه ضعف صبره وشكره إيمان كيسو مركو زياده صبر كيسي يما هدنقيسو بوي كرديان إيمان كيسو مركو هوس دعانا لبدا سينا هوس بولا دعيان ويا لبدو بإيمان كأي كمديهين أيها المسلمون عباد الله إلهي سبحانه وتعالى سيدبا لوغو مهدنقيا
ilaahay waxaa loogu mahadnaqayaa marka koobaad addoonku nicamka ilaahay uu siiyey inuu ictiraafo u qiro oo isagoo og aanu dafirin oo aanu diidin inuu sheego wama binicmati rabbika faxadith in allaha subxaana wa tacaala nicamka siiyey uu u tiiriyo u nisbeeyo meel kale aan ugu abtirin sidaa ilaahay ba uhi wamaa bikum min nicmati famin allah in ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaano oo rabbi subxaana wa tacaala uu xuso nebi maxamed wuxuu ihi ilaahay wuxuu jecel yahay addoonku marka uu cunto cuno ama uu wax cabo an yaxmadahu calayha inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaano waayo waa nicmo ilaahay cuntadaas iyo cabitaankaas inuu addoonku la yimaado camal wanaagsan oo nicmooyinka ilaahay uu kaga jawaabayo oo shukriga iyo mahadnaqa camalka fiican baa ka mid ah salaadaa ka mid oo soomkaa ka mid oo sadaqadaa ka mid ah oo xuska ilaahay baa ka mid ah icmaluu aala daawuuda shukra rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam salaatuleylkii waa habeenkii isu taagi jiray wuxuu tilmaamay inay tahay mahadnaq ilaahay uu uga mahadnaqayo dembi dhaafka ilaahay u dembi dhaafay kiisii horiyo kiisii dambeba ilaahay subxana wa tacaala u dhaafay ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay nicamka uu ina siiyey waxaa ka u weyn nicmada islaamnimada iyo iimaanka ilaahay baa subxaana wa tacaala nicmo ku sheegay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilahay wuxuu sheegay islaamnimadan iyo iimaanku inuu yahay nicmo bal waa nicmada u weyn laa tuqadaru bithaman haba yaraatee wax gooyaa maba jiraba xoog iyo xeelad midnaba iyo xoolo midnaba laguma helo ilaahay addoonka ugu nicmeeya ayuunbaa hela ilaahay aynu uga mahadnaqno si aad nicmada u dareentana waxaad eegtaa imisa khalqiga ilaahay gaalnimo baaqi ku ah waxaa ka mida nicamka ilaahay waaweyn cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waafajiyey kullu cibaad oo ilaahay uu ku waafajiyey waa nicmo walihaada ayaa waxaa layna baray oo qur-aanka iyo sunnaaba ku sugan cibaadaadka dabadood ilaahay inaynu mahadnaqno lanna waxay ku timi oo aynu ku samaynay ilaahay waafajintiisa iyo fududeyntiisa nicamka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mida nicmada nolosha inaad weli noosho fursadaad haysato khaladkaaga aada ku saxdo sahay aad ku kororsato aada ku ziyaadsato waa nicmo cadiima cumrigaagu waa nicmo lagu weydiin doono xaaladda dhalinyaronimo aad ku jirtaana waa nicmo iyadana si gaara lagu weydiin doono wa can shabaabi fima can cumrihi fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah waxaa nicmo ah asixa caafimaadka ilaahay subxana wa tacaala uu ku siiyey imisa caalamka xanuun u jiifa nicmataani maqbuulu fiihima kaiiru min annaas asixatu walfaraaq kuwa xanuunsanaya warkooda dhegayso dul tagoo booqo markaasaad garan doontaa nicmada caafimaadka ilaahay subxana wa tacaala uu ku siiyey nicmat larzaaq khalqigoo dham ilaahay arsaaqdiisa ayay cunaan oo mid ilaahay arsaaqdiisii ka marhani ma jiro midba inay u gaadhaba iyo noocay u tahayba waa nicmo iyadana mudan ilaahay subxaana wa tacaala in looga mahadnaqo ayuha almuslimuuna cibaad allah waxyaabaha addoonka ku dhiiri gelinaya ama xusuusinaya ilaahay nicamkiisa inuu uga mahadnaqo waxaa ka mid a altafakuru fii nicami illahi wata'amulu fiiha nicmooyinka ilahay inuu ka fikiro oo uu fiirsado u isweydiiyo oo uu tiriyo arrintaasi waxay ku dhalin doontaa kuna dhiirin doontaa inuu ilaahay nicamka uga mahadnaqo nabiyuna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiisa waa kula dardaarmi jiray
cibaadatu shukri ilaahay inuu waafajiyo inay weydiistaan waayo waa cibaado addoomaha inta la waafajiye ay yar yihiin oo dadka in badan oo ka mid a nicmada lafteeda shukrigii ka mashquulisa umahadnaqay ahayd ilahay inay umahadnaqaan ayay nicmada kaga jeestaan qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam limucaad ya mucaad inii uxibuka fi اllah falaa tadacana dubura kuli salaaةi an taquul allahuma acinii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik mucaadow ilaahay daraaddii baan kuu jecelay salaad kasta dabadeed ha ka tegin oo salaada intaanu ka bixin mar hadday duco tahay duburu salaa la yidhaahdo waa fi salaa waa salaada gudaheeda hadday dikri tahayna waa salaada marka laga baxo salaad kaste aakhirkeeda iyo halka u dambaysa markaad marayso horta ducayso sida nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam guud ahaan bay inagu dhiirigeliyey gaar ahaana ducadana ka tegin ilaahay igu caawi oo igu kaalmee o ii fududay o waafaji xuskaaga calaa dikrika wa shukrika mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo si fiican inaan kuu caabudo oo aan kugu caabudo bidarajati اlixsaan sidii oo aan ku arkaayo haddaan taa hoos uga dhacaan aanu xusuusan inaad adigu i arkayso ilahay baynu weydiisanayna taa inu ina waafajiyo allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar allahuma acina calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik allahuma صli calى nabiyina mxamed wعalى ali nabiyina mxamed kama صlayta calى ibrahima wعalى ali ibrahim وbارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك Somaliland dhammaantii subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida too suuqyada magaalada ganacsigaas usumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaalla waxay saanta haystaan internet ilaa coosugan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubarada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegin kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxubbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet ha moogaan gurigaaga soo gela wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata gu'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidhayno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot sbiid badan soo gasho waa shirkadda koowaad ee somalilan hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awood